wanaagsan walaalayaal waa aniga oo ah Ridwan Ali kuwaana waa qodobada ugu waaweyn maanta aan idin hayno wararkeena waxaana kamid ah covid iyo talaalada Maine qorshaha gargaarka madaxweynaha Mareykanka iyo sannad-guuradii koobaad ee dhimashadii Breonna Taylor laakiin marka ka horeysa waxaan ku bilaabeynaa qaar kamid ah wararka ka soo baxaya magaalada Atlanta Georgia habeenkii talaadada halkaas oo 3 toogasho ay ka dhaceen kuna dhinteen 8 qof 8 qof oo u badan dumar oo ka soo jeeda qaaradda Aasiya ayaa lagu dilay halkaas oo ka dhacday 3 goobood oo ay dadka Aasiyaanka leeyihiin oo ku yaala gobolka Atlanta Georgia ka hor intaana booliiska xiray ninka 21 jira oo laga shakisan yahay inuu yahay ninka kaliya oo ka dambeeyay weerarkaas dhammaan 3 toogasho waxay ka dhaceen wax ka yar 2 saacadood gudahood eedeysanaha Robert Aaron Long oo 21 jira ayaa lagu arkay muuqaalo fiidiyoo ah oo ku sii socda kana soo degaya gaarigiisa meel u dhow goobaha toogashada ay ka dhacday booliiska ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin inuu tuhmaha uu isku mid yahay 3 toogashaba Long ayaa la qabtay oo xabsiga la dhigay habeenkii talaadada halkaas oo lagu qabtay meel u jirto 2 saacadood magaalada Atlanta ninkii dadka dilay ayaa maanta sheegay inuu dilka u sameeyay galmo dabiici ah awgeed 18 jir haweeney ah iyo caruurteedii waxay ku fadhiyeen gaarigeeda 2 duhurnimo markii uu nin xanaaqsan u imaaday oo indhaha ku gubo oo ku dhaxay meeshaad ka imaateen ku laabta booliiska ayaa sheegay markii ay damacday inay dhaqaaqdo inuu dhinaca darawalka intuu maray uu la ku dhuftay muraayadiina uu jabiyay booliiska ayaa awooday inay aqoonsadaan eedeysanaha oo hadda wajahaya dacwada la xiriirta xumaan fal dambiyeed aan u nimaadno isbedelkii covid ee maanta Maine CDC waxay soo tabinayaan 203 case oo cusub oo ah covid-19 war wanaagsan oo loogu talagalay dadka u qalma in la talaalo hadda waaxda caafimaadka ee adeegyada aadamaha ee Maine ayaa ku dhawaaqday caawimaad gaadiid oo ku bilaash ah loogu talagalay dadka Maine ee u baahan in la raaco ballanta talaalka covid-19 Maine DHS waxay iskaashi la leedahay Motive Care oo ah hay'ad isku dubaridaysa caawimaad gaadiid ay la sameeyeen Maine Care si loo siiyo safaro loogu talagalay qof kasta oo degan gobolka Maine oo awoodi karin inuu kaxeysto gaadiidkiisa ama aan haysan gaari uu ku aado ballanta caawinaad cusub oo xagga gaadiidka ah waxay meesha ka saaran tahay caqabad kale oo soo food saartay dadka Maine ee halista ku jira ee u qalma in laga talaalo covid-19 ayuu yiri Dr. Shah dadku waa inay haystaan ballan talaal oo la xaqiijiyay ka hor intaysan wacin gaadiid waxaanay waci karaan 48 saacadood ka hor ballantooda dadka sida ugu macquulsan kuwa waxaa laga yaabaa in lala wadaago dad kale sidaa darteed afxir ayaa waajib ah sida ay sheegtay DHS adeegani wuxuu diyaar u noqon doonaa ballamaha la qorsheeyay Isniinta ilaa Sabtida laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 4 galabnimo ugu yaraan 48 saacadood ka hor ballantaada waa inaad wacdaa 1855 6 si aad u qabsato raacitaanka iyo inuu diyaar uu ku noqdo macluumaadka soo socda taariikhda iyo waqtiga ballanta magaca iyo ciwaanka iyo taleefanka lambarka xarunta ay ku leeyihiin talaalka si kastaba ha noqotee haddii aad wali u qalmin talaalka wali waxaa jira war wanaagsan caafimaadka Maine hadda wuxuu leeyahay lambarka taleefanka ee aad wici karto si aad ugu qorto liiska sugitaanka nambarkaasi waa 1877 7 dad badan ayaa soo wargeliyay inay qaadato ugu yaraan 1 ilaa 2 toddobaad si lagu soo celiyo
ama waxaad aadi kartaa Maine Health website ood ka arki kartid sida loo kala hor qaadanayo. Macluumaadka iyo xasaasiyadda dhaqanka tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay degmada Androscoggin, taas oo ah gobolka ugu yar ee la siiyey talaalka. AK Health ayaa heshay maalgelin ka socota gobolka Maine si ay u fuliyaan dadaalkan. Cabdiqadar Shire oo ah agaasimaha fulinta ee AK Health ayaa sheegay isgaarsiinta u dambeysay ee deegaanka hogaamiyayaasha diinta iyo dadweynaha ayaa wadaagay in waraaqad kasta oo talaalka ku saabsan lagu turjumo dhowr luuqadood. Hay-adda AK Health ayaa sidoo kale barteeda internetka ku leedahay baahinaysa muuqaalo muujinaya imaamada masaajidka oo qaata talaalka iyo ka hadalka habka. Dad badan oo muslim ah ayaa ka labalabeynaya inay helaan talaalka sabab la xiriirta walaac laga qabo in ay doofaar ku jiro talaalkan. Shiro wuxuu ku faafinayaa wararka ku saabsan soo saaritaanka talaalka oo ay ku jiraan Pfizer iyo Moderna, ayaa sheegay inay waxyaabaha doofaarka aysan ka mid ahayn talaalka COVID-19. Dr. Shah, agaasimaha xarunta Maine ee xakameynta iyo ka hortagga cudurrada, ayaa yiri intii lagu jiray Khamiistii oo ka kooban in CDC ay ka shaqeynaysay sidii loo heli lahaa goobo talaal oo dheeraad ah oo ku yaala agagaarka ay ku jiraan Lewiston iyo Western Maine. Nasiib wanaag, dad badan oo Mareykan ah, madaxweyne Joe Biden wuxuu u saxeexay $1.9 trilyan dhaqaale kicitaan iyo beelkii gargaarka ahaa coronavirus Khamiistii lasoo dhaafay. March 13 waxaan xusnay sannad-guuradii koowaad ee dilkii Breonna Taylor ee Louisville, Kentucky. Breonna waxay si nabad ah ula joogtay ninkeeda markii booliska si xaqdarro ah u soo jabiyey albaabka gurigeeda. Habeen saqdhaxa ah ayaa 6 xabadood lagu dhuftay iyada oo halkaas ku dhimatay. Askarta markii dambe waxa ay sheegeen inay raadinayeen qofkii deganaa guriga Breonna Taylor ka hor. Breonna Taylor waxay ahayd farsamo yaqaan caafimaad oo jirtay 26 markay dhimatay. Magaalada Louisville waxay la gaartay heshiis 12 milyan ah qoyskii Taylor bishii 9aad sanadkii 2020, laakiin hal askari lama xukumin ilaa iyo maanta oo ku lug lahaa weerarkaas ay lagu qaaday Breonna Taylor. Maalin ka hor sannad-guuradii dhimashadii Breonna Taylor, ninkeeda Kenneth Walker III markii xukuumaddii lagu hayay laga qaaday, wuxuu dacwo ku bilaabay Louisville Metro Police Department, taas oo sabab u ahayd dilkii islaantiisa iyo xukuumaddii cadaalad darrada ahayd isaga lagu sameeyey. Waa hagaag, intaas waxaa noogu dhan warkii aan idiin haynay isbuucan. waanad ku mahadsantihiin inaad ku xiran tihiin barnaamijkan. Isbuuca dambe soo socda waxaan idiin haynaa warar aad ku farxad gelin doona oon kaga hadli doono taariikhda cusurnimada ee ku qoran buugga Portland Charter. Aniguna waxaan ahay qofkii suurtageliyay barnaamijkan in la sii daayo waa Ridwan Ali. waxaana nagala soo xiriiri kartiin bogga aan ku leenahay Instagram ama Twitterka oo ah Boundless Media. Thank you very much.